Ma doonaysaa mathematics-ka secondary schoolska inaad ku barato 4 bilood iyo wax ka yar? Mana doonaysaa manhaj soo koobaya luqadda Ingiriishka? Mana xiisaynaysaa xirfadaha iyo software-da accounting-ka lagu shaqaysto? Mana rabtaa book finance ah? Intaasoo dhan waxaad ka helaysaa Jawhar Online Academy. Haddaba haddaad koorsooyinkan mid ka mid a ama laba ka mid a aad xiisaynayso, nambaradan shaashada ka muuqda nagala soo xidhiidh. Ama sidoo kale Play Store-ka waxaad ka soo dejisan kartaa Jawhar Academy si aad dhammaan koorsooyinkan oo dhan intii aad xiisaynayso aad uga qaadato. Nawaas Shariif oo ka soo hadlaya India, maxay ahayd su'aashii ugu adkayd ee noloshaada lagu weydiiyey? Wataa su'aashaas ayna soo weydiiyey oo ah maxay ahayd su'aashii ugu adkayd ee abid lagu weydiiyey? haa dabcan way jireen su'aalo adag oo la weydiiyey, laakiin hadda inaan sheego su'aashii ugu adkayd ee la weydiiyey ma doonayo hadda inaan si public ah u sheego, waayo ma aha su'aalo soo noqnoqda, waana su'aalo adag oo weerar cad ah. Marka haddii su'aalahan ay qarsoon yihiin oo aysan dad badani ka warhaynin, hadda inaan shaaciyo ma aha. Laakiin haddana alxamdulilah su'aalahaas jawaabtooda waan hayaa. Ilaahay ayaana igu caawiyey inaan jawaabtooda helo. Su'aalaha noocan ahna keliya waxaa lagala xaajoon karaa culimada waaweyn iyo fuqahada, waayo iyagoo keliya unbaa si fiican u fahmi karaya. Weliba su'aalahan jawaabtooda waxaan weydiiyey culimo aad u badan oo ilaa 50 ilaa 100 caalim ah, laakiin nasiib darro iyagana jawaab kama helin. Sababtuna ma ahayn inay aqoon darro hayso, laakiin waxay ahayd maqsadka iyo ujeedada su'aasha oo la fahmi waayey. Markaan su'aalahan soo weeraraya islaamka, horta ma aha su'aalo badan oo la wada og yahay oo cid walbaaba ka warhayso, hadhowna way adag tahay qofku inuu fahmo jawaabteeda. Markaa su'aalahan waa su'aalo noo gaar ah, xataa haddaadna weydiisaan idinma sheegayno. Keliya waxaan su'aalahan kala xaajoon karaa culimada waaweyn ee aqoonta islaamka leh. Markaa dabcan inkastay jireen su'aalo badan oo adkaa kuwaasoo u baahnaa jawaabo caqliyeysan, laakiin marnaba jawaabtooda aysan la xidhiidhin islaamka. Markaa bal su'aalaha noocaasa hal tusaale aan idinka siiyo. Inkastayna su'aashan ahayn tii ugu adkayd, laakiin xogaa way yar adkayd. Waxayna ahayd ku dhowaad 2014 Dubai maraan khudbad ka jeedinayay. Khudbaddii markay dhammaatay, badanaa dadka waxaan u furaa su'aaliyo jawaabo. Waxaana masraxa fadhiyey 15,000 ilaa 20,000 oo qof. waxaa jirtay gabadh aan muslim ahayn oo su'aal weydiisay. Waxayna tidhi, Dr Zakir, badanaa waxaad tusaale nagu siisaa oo tusaale u soo qaadataa marka lagu weydiiyo su'aasha ah maxay gabadha muslimadda u xijaabataa. Su'aasha marka lagu weydiiyo waxaad tusaale u soo qaadataa haddii ay jiraan 2 gabdhood oo mataano ah oo ay labaduba isku si u qurux badan yihiin. Labada gabdhood mid ka mid ah haddii sida islaamka u xijaabato, midda kalena sida gabdhaha reer galbeedka isu qaawiso, ay labaduba suuqa maraan, wiilasha ciyaal suuqiinta iyo miday dhibayaan. waana runteeda tusaalahan marar badan ayaan soo qaatay. xataa khudbadihi aan 9-shamaadka jeedin jiray tusaalahan waan soo qaadan jiray. xataa khudbaddii ugu horreysay aan jeediyey 1993 oo ahayd haweenka islaamka, tusaalahan waan soo qaadan jiray. mar walba su'aashan dadka weydiiyana dadku waxay igu jawaabi jireen gabadha dharka reer galbeedka xidhan. marka ugu yaraan 20 sano jawaabtu sidan ay ahaan jirtay. marka ugu dambeyntii gabadhan ayaa soo istaagtay oo tidhi, ani aragtidayda ciyaal suuqiintu waxa ay dhibayaan gabadha xijaabka xidhan. waxaan ku iri sabab? waxayna tidhi, raggu had iyo jeer waxay jecel yihiin inay ogaadaan dharka waxa ka hooseeya. taasina waa sababta keenaysa inay foorjeeyaan oo ay dhibaan gabadha xijaaban. gabadhayda oo ku jirta dadkii masraxa fadhiyey ay dhegaysanayey ayaa markay maqashay su'aasha gabadhan waxay tidhi, alla aabbahay maantuu go'ay. ana dabcan waan yaabuu dib baan u baxay. marka ana waxaa ii caddaatay su'aalaha noocanihi inay yihiin su'aalo uu shaydaan isku soo dubariday. laakiin alxamdulilah, xaaladahan oo kale markay igu dhacaan mar walba ilaahay ayaa faraj ii fara oo i caawiya. waana soo kacay oo waan soo istaagay. waxaana idhi, walaasheen waxayna weydiisay su'aal fiican. waxaan dib u soo akhriyey su'aashii ay soo weydiisay. waxaana idhi, kuguma raacsani jawaabtaada, sababtoo ah jawaabta aad bixisay jawaab macquulgal ah ma aha. laakiin haddii aad dareensan tahay jawaabta aad bixisay inay sax tahay, maxaad adigu hadda dharka u xidhan tahay? haddii aad doonayso inaysan raggu ku dhibin oo aysan ku foorjeynin, dharka iska saar. ilaan waxaa tiri raggu waxay dhibaan oo foorjeeyaan hablaha xijaabanay. runtii markaa gabadhaasi aad ayay u cajiibtay oo ay u yaabtay.
su'aashii ay weydiisay ee ana isla su'aal aan uga jawaabay waxay u noqotay dhirbaaxo weyn oo su'aasheedii iyo shaydaankii wax isku soo hagaajiyeen labadoodaba dib ugu noqotay marka su'aalaha noocana ee dadkan muslimka ahayn ay rabaan inay islaamka ay ku weeraraan dabcan ma aha su'aalo jawaabahooda islaamka looga helayo laakiin waxay u baahan yihiin in si caqliyeysan oo xikmadeysan loogu jawaabo waayo ilaahay wuxuu yidhi uduu ilaa sabiili rabbika bilxikma walmawcizati alxasana wajaadhum allatii ahsan jidka ilaahay dadka waxaad ugu yeedhaa qaab xikmadaysan iyo waano wanaagsan si wanaagsanna ula dood marka su'aalaha noocani aad ayay u badan yihiin haddii aad muuqaaladeedii hore ee su'aalaha iyo jawaabaha aad dib u daawataanna waxaad ku arki doontaan su'aalo badan oo noocan oo kale ah dabcan Dr Zakir waa runtii anigan hadda hadlayaa waxaan arkay arrin hadda dhowr bilood ka hor aad iiga qeyraysiisay horta markaan daawanayo Dr Zakir badanaa waxaan dhamaystaa kalfadhi dhammaystiran oo video 3 saac ilaa 4 saac soconaya ayaan hal mar wada daawadaa marka waxaa dhacday 2 kalfadhi oo isku xigay oo 2 maalin oo isku xigta la qabtay ayaa maalintii hore waxaa soo istaagay wiil dhalinyar ah dabcan oo research aad u badan soo sameeyay oo isagoon muslim ahayn haddana qaabku islaamku u yaqaano aad ka yaabayso hadalladiisa xataa waxaa ka mid ahaa waxaan ahay arday injineer hadda sii dhammaynaya waqtiga iyo dadaalka iyo fikirka igaga baxay inaan islaamka baadho dhowrkii sane ee injineernimada dhiganayay waqtigaasoo dhan kuma bixininba ayuu yidhi su'aalihiisu markaas siday u adkaayeen ay u qallafsanaayeen marka horuu su-aasha akhrinayo waxaad is odhanaysaa su-aashan talow armuu Dr Zakir ka jawaabi kari waayaa haddana dabcan siduu hadda Dr Zakir sheegayba xaaladahan oo kale markay qabsadaan ilaahay ayaa caawiya ayuu yidhi markaa su-aashii aad islahayd su-aashani jawaabba ma laha wuxuu uga jawaabaa qaabkii aad filaysay qaab ka sarreysa insha allah wiilka injineerka ah iyo su'aalihiisa waxaan idinkula wadaagi doonaa qaybaha soo socda ugu dambeyntii la soco muuqaalada dambe ee aan insha allahu soo gelin doono kuwaasoo ku saabsan su'aalaha iyo mawduucyada muhiimka ah ee uu ka hadlo Dr Zakir Naik sidoo kale haddii aad tahay qof xiiseynaya luqadda Ingiriishka ku soo biir online private-kayga kaas oon ku bixiyo manhaj soo koobaya luqadda Ingiriishka manhajkaas oo aan rajaynayo haddii aad sida uu yahay u barato inaad insha allahu 90% wax ka badan aad luqadda Ingiriishka fahmi doonto sidoo kale haddaad tahay arday booqo Jowhar Academy si aad koorsooyin badan u barato